قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر الأطهار نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر الأطهار challenge كوارك يا مسلم كهايستمانت وجهل بدين الدين تسوي جاهل كي إيادا صبابتين قيسسكو بربران وانا عليه السنة يا شيخ سلامتي صدح باقو فرأي محيا لا بقورني دي waxay ahayd ilaa way ka fuqaysaa haddaan mid quraba ku furtee saaga ama mid ku dhagsananaysa hadduu mar qura furo fuqaysaa laakiin jahliga wuxuu gaaray xad uu isleeyay iska reebi karimaysid inaad saddex sheegta mooyaane idan jahliga ummadda haysta qoysku waxay culimada muslimiinta tilmaamayaan مثلا shan qodob bay maqaasidda qoyska ku tilmaamayaan shanta qodob qodobka koowaad ee qoyska looga dalnayo waxa weeyaan waa xifdu nasab in jinsi albashari la ilaaliyo binaadamku inaanu dabar go'in maanta reer galbeed waddanna waaweyn oo ka mid ah dabar go'aya sii yaraanaya aqoon-yahankooda rag badan oo ka mid ah bugaa qoraya ay leeyihiin waanu maranaynaa ma aha in dawladda ku soo duuleen waa inay wax dhali waayeen dumarkoodii laba sababoodba wala loolamaya de gabadha hadday wax dhasho soo ninka ka hadhi mayso ninka iska celinaysa de wasiirnimo raadinaysa madaxweynenimo raadinaysa si ay taa u samayso waa inay 30 sano jaamacada iyo dhowr iyo 10 sano experience soo gasha oo axzaab iyo shaqo iyo xoog siya 40 iyo dhowr markay gaadhana de ilma kala tageen laakiin waa hal nin iyaduna markaas iyo rag iska celinaysa noqoto jinsi albashari si loo ilaaliyo guur baa loo baahan yahay guur qaabkii sharciga ahaa u dhaca nin iyo gabadhii la yaqaanay ah si bulshadu deganaanshiyo xasilooni ay u hesho guur baa loo baahan yahay taxqiiq السكن والمودة والرحمة ومقصد labaad meel qofka binaadamkii uu ku nasto nin iyo gabadhba qofka binaadamkii gurigiisa ku nastaa gurigiisu naxariis ka helaa gurigiisu deganaanshiyo ka helaa gurigiisa stress ku kaga hadha ولذلك ما إله إلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مقصدك مقاصد وين أقولك وحكم ده إن لا إلاليا نصبك أبترسين تدتك إليين يا إلمه عد حنانا يسوء كوريسوء وكحرين يكمدين لها كوي دولدو كوريين كوري واي dunida maanta waxa la yiraahdaa child delinquency baa waalay junuux al-atfal carruurta yaryar dambiilayaasha dunida waaweyn waxaad arkaysaa xabsiyo dhan oo juvenile prisons la yiraahdo xabsiyada carruurta yaryar waa carruur yaryar oo mujrimiin noqotay wax dilayso wax boobayso maxaa keenay inta ugu badan ama guri aan jirin bay ku soo koreen ama sharci la'aan bay ku dhasheen dibadda iskaga biireen ama meelaha dawladuhu hayaan bay ku soo koreen ama wax la mid ah ولذلك النصب كلا إلي درادة بشريعة الإسلام زنا ممنوع ذي وتبني عروت اللي يبسدا ما لما قعدوا ممنوع ذي وعدة اللي تشديني قبل عدة ترسطه والله ممنوع قبل الرحب كذا وحكوا شرايين قرصه وإثبات النسب للسمية وجحدي سيل ظفر الشرع لقد شيء وحاصوا أحكام القرآن كور رميه ومن أجل حفظ النسب الله إلى اليوم